ciidamada booliska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Togdheer oo muddooyinkii u dambeeyay howlgal kala duwan ka waday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ay ku baarayaan mukhaadaraadka qaybihiisa kala duwan ayay ku soo qabteen qamri taladiisu dhantahay 587 dhalo waxaanay ku soo bandhigeen saldhigga Faarax Omar taliyaha ciidanka booliska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer oo kala qayb galay ayaa waxa kale iyaguna halkaas ku soo bandhigeen hubka fudud ee toorada iyo burka magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer aad looga isticmaalo oo ay ku soo qabqabteen ciidamada booliska gobolka Togdheer taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Togdheer oo arrimahaasi ka hadlaya iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer waxa hadalada halkan ku soo bandhigay mukhaadaraadkii ay qabteen gobolkan Togdheer gaar ahaan saldhigga dhexe iyo saldhigga Faarax Omar khamrigaas oo ah marka la isku geeyo 587 dhalo khamrigaasi oo aanu ku qabanay laba Land Cruiser oo hadda halka jooga iyo khamri aan ogaanay oo loo soo sheegay meel lagu aasay khamrigaasi haddaan si yar dhex galo dhalooyinka markaanu eegnay khamrigu wuxuu expire ahaa noqday 2015 dhowr sano buu expire xarfaanteenan khamriga keentaa khayr kuma oogine waxay soo xaabsanayaan waxa dhacay way dadka iibinayaan oo soo dhex gelinayaan bal ha ina soo dhex gelayaan cudur bayna soo dhex gelinayaan waa wax dhacay warshadu daadiyeen إما كوانو قبناي وحورينا وانا لقبتي لو رد كلا الله صورريا ومشكلتنا هيستوي لبدي جاروانو هينا iyo xabadtiga oo iyadoo inta meel ka soo qaaday suuqa la dhex sootana waanu qabanay marka waxaan leeyahay reer Togdheero iska ilaaliya beer ku jarjaraya khamrigaas waxa kale oo jira waxa la yiraahdaa xashiishadu way yartahay inta badan waxaanu qabanaa xidhan xashiishad la cabayo oo sigaar xabad sigaar la isku dhiibaya dhalinyartiina way wada gaadhay xabad baanu ku qabanaa laakiin se wali khadkii weynaa waanu ku soconaa insha Allah waanu helaynaa talabaada soo raacda waxa weeye bahashan la yiraahdo bahashan la cabaa caruurta xabagta waxaan uga digayaa ganacsatada inaan xabag laga iibin karin inaan yaroo socda amba nin aan meherad lahayn ninka muxuu ahaa taayirka banjariya kuwana sharci baan soo dejin doonaa waayo suuqi baa la isla dhex marayaa waanu ka hawlgalaynaa laakiin se ganacsatada aanu ku qabanno waxa weeye jeelka loo diraya laakiin se ha iibiyaan waxaan leenahay layn sax ah loo maro ulaha faraha badan leh iyo tooreyda waxaanu suuqa dhexdiisa aanu ka qaadanay dadkaanu ka ururnay kuwan baanguhuna waa tuugti laakiin se kuwa uluhu tuug maaha dadkaanu ka ururnay si aanay qofku ugu dhufan oo magaaladu caadisato kadibna anagoo gurayno gawaarida ku guranay si fiican ummadii shacabka noo garaaceen waxay yiraahdeen waa bal naga ururiya toorheedina baashan way dhidishay toorheedii iyo burarkana waxa weeye toddobaadladii ama bishii mar baanu galeynaa oo ururinayna waxaan u mahad celinayaa ciidanka bilayska ee gobolka Togdheer oo runtii waajibkiisii qaran oo firfircooni iyo karti dheer iyo runtii ku daray labadii asbuuc ee u dambeeyay ololihii ay qaadeen oo runtii socon doona ololahaasi mid istaagaya ma noqon doono ay ku soo qabteen maanta waxa idin hor yaala oo ah khamrigaas iyo hubka kala duwan haday toore noqotay haday bud noqotay iyo haday ay noqoto baanga noqotaba waxaan rajaynayaa reer Burco sidii wanaagsanayd ay bilayska ula shaqeyn jireen oo u soo sheegi jireen meel kasta oo xumaani taal haday tahay khamro iyo haday tahay xashiishad inay u sheegi doonaan sidoo kale waxaan u mahad celinayaa culimada waa Saciid Cali Usmaan Xalays telefishinka caalamiga ee gobonnimo magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer